Security haina mipaka. Security ni ya wote. Na hata wananchi. Iyadoo maalmihii ugu dambeysay bulshada Kenyaanka ay isla dhaxmarayeen isku jabiska countiyada dalka ayaa waxaa magaalada Garissa sidoo kale la hadal hayaa arrinkan. Siyaasiyiinta iyo bulshada ismaamulka Garissa ayaa si qiyaxan uga soo horjeestay arrinkan isku jabiska countiyada iyagoo sheegay inaysan muhiim u lahayn bulshada gobolka Waqooyi Bari xilligan oo countiyada qaar laga dareemayo miraha dawladda dejinta iyo dakhli wadaajinta. Xaalaha hadda Kenyaanka is weydiinayaan waxaa waaye wadankan in gobol isku daro mesela North Eastern tii hore oo kale Wajir, Garissa iyo Mandera si hadda Garissa ay dawlad goboleed u tahay ayaga hal isku noqdaan. Marka mabdaas waa la wadaa oo Kenya oo dhan ba laga soo reebo 14 gobol annaga mabdaa waxaan qabnaa oo gobol sida hadda aan naho in ay sii jirto sababtoo ah meeshan dhaqaale badan ayaa la rabaa in la raadiyo oo dadka wax lagu taro sida aawadeeda hadda isku dar iyo isfahan la'aan kale iyo isjiijid hadda basaan ogno waxa isku sii qabsanaa si hoose oo sub counties iyo siyaalo fara badan aan ku kala bixilana hadii wixii uu sii noqdo regional governments waxaan asagana devolutionku uu hadda marhay 6 sano waqti harakay noqon in hadana isbedel markaa lagu sameeyo marka waxaan rabnaa arrintan inclusivity-ga dawladda shaqaalaheeda inay ahaanun qabiilkii faraha badan ama qabiilka madaxa ee meesha ka in uu awoodda asaga iska qaato oo waxaan la dhaho ninkii ku guuleysto wax walba qaadana inay meesha ka baxdo oo wixii wada jir u ahaado mid ka yar iyo mid ka badanba Kenyaanka markii xisaabtooda la fiiriyo dadka shaqeynaya mesela Kenya Kikuyu Kalenjina u badan ma aha tira bandida bes waxa waaye dadkii madaxnimada ay ayaga ahaayeen arrintaas in ay dhicin oo nin walba meeshuu joogo oo wadaninimada iyo xaq u leeyahay wax ku helo ana waxaan sheegnay Kenya inaanan ogoleen county-yan in la jabiyo county lagu daro kursiya in la dhimona ma ogolin annaga haddii cod nagala qaadayna la warsanay haddii xoog lagu marsanay waa gaar midda labaad nabadgeliyada dawladdu waa shaqeynay waa fiicanta waan u mahadnaqay si kastaba ahaatee arrinkani ayaa lagu tilmaamay mid u keeni karta Kenyaanka kala qaybsanaan iyo horumar la'aan. Maxamed Mooge, warbaahinta Star, magaalada Garissa.